awr ayaa magaalada madiina nebigu isagoo dhex maraya xagga nebiga u soo dhaqaaqo oo xadhigiisii soo goostay saxaabadu way yaabeen way naxeen markaa buu nebigu iska jooga halkiinna awrkii siduu u soo socday ayuu nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam labada indhood buu markaa illin ka sii daayey markaa buu nebigu awrkii gacanta ayuu saaray gacanta markaasuu awrkan ayaa leh awrkani waxaa la yidhi yar nin dhallinyaro reer madiina oo ansaariya iska leh markaa buu nebigu iigu yeedhay yar ki yaraa markaa buu nebigu yidhi alaa tattaqi allaha fii haadihi albahiima war bahiimaddan ilaahay gacanteenna uu soo geliyey ee laynoo sakhiray miyaad ilaahay kaga yaabtidaa miyaad ilaahay kaga cabsootidaa miyaad ilaahay kaga xishootidaa awrkaa waxa uu ka cabanayaa laba shay waxa uu igu yidhi markuu iraranayana miisaanka culayska uu igu badiyaa marka ay nasashada ay tahayna xilligii calafka aan daaqi lahaa waa igu yareeyaa buu yidhi markaa ilaahay kaga cabsooda buu nebigu yidhi waa awrkii ayaa nebiga ku dacwooday neefka aad soo gadatay eed u soo gadatay maalinta ciidul adxaa inaad qasho xaqiisii buu nebigu noo sheego wuxuu yidhi birtaad ku afaynaysaana ka qariya afkana soo mariya u soona afeeya si mar keliya nafta aad uga dartaan oo ugu raaxaysaan waa neefkii la gowracayay baa lagu leeyahay qaabkaad u gowracaysaan xaqiisa mariya oo birtana u soo afeeya si mar keliya qudha aad uga jartaan haddaad laba neef gowracaysaanna waxaa sunno ah labadaa neef iyagoos arkaya in la qala maaha kan la gowracayo waa in meelka kale uusan ka arkaynin waa in lagu soo qalaa cumar binu khadaab radia allaahu canhu khilaafadiisii markuu cadaaladda adduunyada u gaadhsiiyey ayuu maalin maalmaha ka mida uu murugooday markaa baa lagu yidhi yaa amiira almu'miniin murug baa kaa muuqatay maxaa kaa maqan ood ka murugoonaysaa noo sheeg waxaan la murugoonayaan idiin sheegi buu yidhi daabadda faraska ciraaq agteeda socda faraska ciraaq socda hadduu dariiqa uu marayo dhagax uu ku jidho turoodo maalinka qiyaamaha anigaa la weyddiin doonaa oo laygu odhan doonaa maxaad ugu hagaajin weyda dariiqa saxaabada rasuulku xaqi ilaahayna way ilaaliyeen xuquuqdii bani aadamkana way ilaaliyeen xaqii xayawaanka kula nool dhulkoogana way ilaaliyeen leanna noloshii adduunyadu markaa janna u noqotay janno diinta islaamku markay kan xaqiisa ilaali ku leedahay xaqaaga inuu ilaaliyaa ha ka sugin isaga tu'adduuna buu nebigu yidhi hee xaqa aladii calaykum wa tas'aluuna allaha aladii lakum baa nebigu yidhi xaqa ay nagu leeyihiin iska guda madaxdiinna xaqooga haddaad ka weydaan inagu xaqiinna siiya ninkaaga xaqaaga haddaad ka weydo adigu xaqiisa sii aabbaha xaqiisa haddaad ka weydo adigu aabbaha xaqiisa sii ilmahaaga haddaad xaqaaga ka weydo adigu xaqiisa sii xaqaaga ilaahay baa kaaga qaadi doonay buu rasuulku diinteenna islaamku kuma dhisno ixsaan baan kuu samaynaya ixsaan ii samee wanaag baan kuu samaynaya wanaag ii samee waxaanaan ku siiyey wax lamida isii ma qabta diinta islaamku caynka diinta islaamku waxay ku salaysan tahay kii ku gooyo adigu xidhiidhi kii ku dulmiya iska cafi kii wixiisa kaa xarrima waxaaga sii ka xumaan kugu sameeya adigu wanaagga u sameeye diinteenna islaamku waa diin shaamila oo dhammaystiran laakiin dad badan baa marka qiyaama hortiisa la soo tumi daadna waxay odhan doonaan yaa rabbi aniga kan dhiig buu iga daadiyey buu odhan doonaa kanuu i dhacay buu odhan doonaa kanuu i garaacay buu odhan doonaa kanuu i xantay buu odhan doonaa kan cirdigaygiiba cayay buu odhan doonaa daadna markaasaa ilaahay odhan doonaa khayrka uu soo shaqaysta ka qaada isaga oo dadka u qaybiyoo jannada ha ku galaane markaasuu nebigu yidhi sal allahu alay wasalam dad kalaa weliba baaqi noqon doono wax ku sheeganaya waxaa la odhan doonaa marka khayrkiisa u qaybiya waa loo qaybiya yaa rabbi wax khayroo u hadhay haba yaraatee ma jiro waa hagaaga dadkaasi dembiga ay wataan
ka soo qaada oo maaragtaana isaga dusha u saara deedna naarta ku turaa la odhan doonaa buu rasuulku. caydhu waa kaa 30 sano 60 sano 70 sano camalkii wanaagsanaayu ku soo tabcaayey waa xaqii ilaahay u ilaaliyey laakiin xaqii bini aadamka muusan ilaalin. xaqii bini aadamku ku tuntay khayrku soo shaqaysa dad kalea janno ku galay dembiga dad kale ay soo shaqaysteenna isaga ayaa naar ku galay buu rasuulku yidhi. innagu dad ehelaan nahay dad muslimiinaan nahay muslimku muslimka kale waa walaalkii wa kunuu cibaad allaahi ikhwaanan baa nebigu yidhi walaalo ilaahay addoommo ilaahay oo walaalo a noqda buu rasuulku. marka qofka muslimka dhiiggiisa in la daadiyo waa xaaraan, cirdigiisa in meel lagaga dhaco waa xaaraan, xoolihiisa xaqdarre in lagaga qaato waa xaaraan. sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam. qofka muslimka cayda aad caayaysid faasiq baad ku noqonaysaa. faasiq waa maxay? waa qofka ilaahay daacaddiisa ka dhex baxay. faasiq hadduu qofku noqdona hidaayadda qofkaasi ma mutaysta baa la yidhi. wallaahu laa yahdi alqowma alfaasiqiin. dadka fasaqada iyo faasiqiinta ilaahay ma soo hadaya baa qur-aanka ilaahay ku sheegay. muslimka cayda la caayaayo faasiqnimo ayaa lagu mutaystaa. wa qitaaluhu kufrun baa nebigu yidhi. dilka qofka muslima la dilana waa lagu gaaloobaa. qabiil iyo qabyaalad waa waxa waddankeenna dariskeenna ee dalkeenna ka soo jeedna naga baabi'isay. innagu dad muslimiina ilaahay naga dhigay, diin islaama ilaahayna siiyey, caqiide midaata ilaahay nagu deeqay, madhab keliya ilaahay na siiyey, luqo keliya ilaahay nagu deeqay. qofka muslimka ee walaalkaa muslimka islaamnimadiisa ku tixgeli, meel islaamnimo ka hoosaysa ha yeelin. waxaad tidhahdaa anigu muslim baan ahay. walaalkaaga muslimka haddaad wax u taraynin ha dhibin, haddaad ka farxinaynin ha ka murugsin, haddaad ammaanaynin ha canaanan. abaadar alkhifaari saxaabiga la odhan jiray ayaa bilaal alxabashi buu ku caayay hooyadii. waxa uu ku yidhi ina hooye madow buu ka yidhi. markaasaa nebiga loo sheegay calayhi salaatu wassalaam. markaasaa nebiga wejigiisii baa bedilmay. yaa abaadar acayartahu biummihi baa nebigu yidhi. yaa abaadar ma hooyadii baad ku ceebaynaysaa? ma hooyadii baad ku ceebaysay? wallaahi buu nebigu ku yidhi abaadarow weli adiga khaslad jaahiliyaddii baa kugu jirta buu rasuulku yidhi. marba haddaad hadal cunsuriyada aad ku hadlayso oo bilaal aad u nisbaysay hooyadiisii madoobayd aad ku caayday weli khaslad jaahiliyadaa kugu jirta buu nebigu ku yidhi. markaasuu abudar uu ku yidhi yaa rasuulallah dembi dhaaf ilaahay ii weydii. muslimiintu walaalayaal haddee mar ilaahay naga dhiga dad muslimiin oo shahaadanaya waa inaan diinta islaamka isku jeclaannaa. diinteenna islaamka waa inaan isku qadarinnaa. diinta islaamka waa inaan isku xidhiidhinnaa. jaarku jaarkiisa xaqiisa waa inuu iska ilaaliyaa. xuquuqda jaarka waa 3 bay culimmadu yidhahdeen. jaar xaq keliyuu leeyahay, jaar 2 xaq buu leeyahay, jaar 3 xaq buu kugu leeyahay. jaarka xaqa keliya kugu le waa jaarkee? waa jaarka gaalka. qof gaalaad daristiin ka soo qaad, isku diin ma tihiin, waa inaad tidhahdaa maaragtaanay xaqii jaarnimo kugu leeyahay jaarkaaga xaqiisa ilaali. cabdillaahi bnu cumar bnu khadaab radia allaahu canhuma ayaa dariskiisu nin yahuudiya ayuu ahaa. cabdillaahi markuu ka yimaada masaajidka reerkiisa wuxuu ku odhan jiray cuntada aad kariseen jaarkeenna wax muuga geyseen buu odhan jiray. bal firs waa yahuudi. nin yahuudiya ayaa yidhi aqalkayga waan gadayaa ha layga iibsado waan ka guurayaa dalke oo waan bedelanayaa dhulke. markaasaa lagu yidhi qiimihiisu waa imisa? waa 120 kun oo dirham buu yidhi. markaasaa lagu yidhi aqalka qiimihiisu waa 20 kun, boqolka xaggeed ka keentaa lagu yidhi. boqolku waa runtii aqalka qiimihiisu waa 20, laakiin boqolku waxa weeyaan sheekha dariska ila ah darisnimadiisaan 100 kun ku iibinayaa buu yidhi. waana kuma sheekhaasi? waa cabdullaahi bnu mubaarak allah u naxariistee. qofka muslimka akhlaaqdaada waa inay gaaladu diinta ku soo gasho. saad xuquuqdooda u ilaalinaysid waa inay diinta islaamka ku jeclaadaan. tani waa addoontii, kani waa addoonkii ha odhanine, kani waa bani aadamo ilaahay baa karaameeyey. adigaa lagaa rabaa islaamnimada ilaahay kugu deeqay inaad isagana aad u dabqato ood u bandhigtaa diinta islaamka. nebigeenna calayhi salaatu wasalaam wiil yaroo yahuudiya u adeegi jiray. yahuuddu nebiga inuu nebi yahay way garanayeen. markaasay ubadkooga u soo diri jireen ay odhan jireen ordoo nebiga maaragtaana u adeega si ay barakadda nebiga iyo ducadiisu inigu dhacdo. markaasuu nebigu sal alla alay slam yarkaa yara ghulaamka
ee yahuudeed baa nebiga u adeegi jiray u khidmayn jiray maalin maalmaha ka mida buu nebigu yarkiibuu waayey saxaabadiisiibuu ku yidhi aawa yarkii yaraa markaasaa la yidhi uu bukaa nebi alla uu jiifaa deedna nebigu calayhi salaatu wasalaam uu soo siyaartay uu u yimid oo uu buuqday wuxuu arkay yarkii yaraa oo sakaraada markaa buu nebigu xagga madaxa ka fadhiisto wuxuu yidhi yaa ghulaam qul laa ilaaha ila allah wiilkan yarow waxaad tidhahdaa laa ilaaha ila allah waa u shaqaynayey laakiin nebigu diintu u bandhigayaa inagana way noo shaqaynayaan aqalladay noo dhisayaan aqalladay nooga shaqaynayaan dad badan oo dadkeennu waa addoontii bay leeyihiin may addoon weeyaan addoon ilaahay bay ahaayeen laakiin cid addoonnimada u bandhigtaa la waaye maanta saad adigu aad addoon ilaahay aad u garanaysa inaad tahay iyakuna ha u gartaane islaamnimada ilaahay kugu deeqay dadka jeclaysii yarkii yaraa uu ashaahatay markii dambe aabbihii baa ku yidhi atic abalqaasim hadalkiisa maqalo ashahaado deedna markuu ashaahatayna naftii baa ka dhacday nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka soo baxay isagoo faraxsan oo wejigiisu aad moodaysa dayax iftiin ka baxaayo oo leh alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar ilaaha yarkaa yar naarta ka badbaadiyey ayaa mahadla isagulu nebigu aqalka ka soo baxay hadduu dariskaagu yahay gaal xaqii darisnimuu kugu leeyahay ilaali hadduu dariskaagu muslim yahayna laba xaq buu kugu leeyahay dariskii islaamnimada iyo xaqii darisnimadu kugu leeyahay haddaad qaraabo tihiinna saddex xaq buu yeeshay xaqii jaarnimo xaqii islaamnimo iyo xaqii qaraabanimo innaga dadkeennu wada qaraabaa nahay ilaahay baa dad muslimiinah oo haddaan isku abtirsanno meel umaan iskugu wada imanaynaa markaa waa inaan isdhexgelinno weeyaan oo nebigeenna calayhi salaatu wasalaam nin saxaabada ka mid ah nebiga ku yidhi gabadh baa dariskayga ah waa gabadh salaad badan soom badan laakiin jaarkayga carabkay ku dhibtaa ee ka warran nebi allow markaa buu nebigu yidhi taasi naar bay ku dhex jirtaa naar ku kalaa yidhi anigana heblaayaa dariskayga ah salaaddeedu ma badna gabadha 5 waqti bay tukataa bas bisha ramadaanna way ka soontaa laakiin jaarkayga way nabadgelisay baa la yidhi ee ka warran nebi allow markaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam taasina jannay ku jirtaa buu nebigu yidhi taasina janno ayay ku jirtaa janno sidaa darteed walaalayaal diinteennu xuquuqda in la ilaaliyayna amraysaa xaqa ugu horreeyana waa xaqa ilaahay casa wajalla xuquuqa alcibaad addoommaha xaq kugu leh iska daa xuquuqa alcibaade xayawaanka inala nool xaq bay leeyihiin